Team just got back from Morocco to meet the mother who was expecting 7 kids, but discovered 2 more surprises while delivering. Now to an extremely rare pregnancy and a possible world record. A 25-year-old woman from Mali has given birth to 9 babies, 2 more. caalamka maalin walba taariikh cusub oo marla arag ah ayaa laga diiwaan geliyaa taasoo marka laga tago xifdinteeda iyo dhowraarinteeda dadku ay ku faanaan haweeneyda ilmo mataanaha kuwii ugu badnaa dhasha inta la og yahay ayaa waxaa calanka u sida haweeney ka soo jeeda Afrika 2022 xarun caafimaad oo ku taala wadanka Morocco waxaa 9 caruur ah oo mataana ah oo afka qalaad lagu yiraahdo nonoblets isku mar ku dhalay haweeney lagu magacaabo Halima Ciise oo ka soo jeeda wadanka Mali kadib markii uu ogaaday aabaha qoyska oo lagu magacaabo Cabdulqaadir Caari in xaaskiisu ay wado wax ka badan filashada kana waayay xarumo caafimaad oo daryeela sidoo kalena samata bixiya afadiisa ayuu waxa uu u qaaday wadanka Morocco halkaas oo ka helay xarun caafimaad oo baxnaanisa Dr. Yusuf Alawi oo ah madaxa xarunta caafimaad ee la geeyay ayaa waxa uu sheegay inaysan ku dhibaatoonin shaqadii ay qabteen taasna ay mucjiso kala tahay caruurtan oo kala ah 5 gabdhood iyo 4 wiil ayaa loo kala bixiyay magacyadan 5 filles 4 garçons. Les garçons il y a Mohamed, Ba, Omar, Al-Haj, et les filles il y a Hawa, Adama, Ummu, Khadija, Fatuma. marka laga tago farxadda reereynta iyo damaashaadka qoyskan waxaa inta u dheer in 19 December 2022 sanadii bar kadib diiwaanka caalamiga ah ee World Guinness Record lagu daray Halima Ciise oo booska kala baxday Nadia Sulaiman oo iyadu ahayd haweeney 8 caruur ah oo mataana hal mar dhashay 2009 She is the current Guinness World Record. haddaba daawade miyay qoyskiina ku jiraan wax mataana ah haddii ay jiraanna ma mataana laba ka badan ba mase waa mataana laba ah